laba warbixin oo cajiib ayaan doonayaa inaan kula wadaago wax yar aad dhegaysatid biidni illaahi waqti yarna aad isiisid. Warbixinta koowaad waa warbixintan. boqortooyada Sacuudiga war ka soo baxay ayaa lagu sheegay magaalada Riyaad ee magaalada madaxda dalkaas Saudi Arabia in markaas ay maanjuuriyaha halista ee khamriga uusan mar dambe mamnuuc ka noqon doonin meel walbana lagu iibin doono. warbixintan waa warbixin rasmi ah way dowladda Saudi Arabia soo saartay ay dhahayso caasimada waa lagu iibin karaa dembina kama aha waxaana laga iibinayaa dadka ajaanibta ah gaalada soo booqanayso wadanka ama safaaradaha ku leh xafiisyada ku leh shaqada inta badan ka furtay oo kale dadka baa laga iibinayaa. warbixinta labaad waxa weeye Imaaraadka BBC da ayaa soo saartay arrin documenti ah dalka Yemen waxyaabihii ka dhacay oo Imaaraadka inta badan ay ka dambayso dhaqaalahana iyada ay bixinayso kooxo calooshoodu shaqaystayaal oo cadaan ah oo inta badan ka imaaday Mareykanka